madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka ka soo kici timay magaalada Muqdisho waxaanan soo gaarnay haatan magaalada Damaam oo berri uu ka furmi doono shir madaxeedka 9-aad ee dalalka ku bahway Jaamacadda Carabta. ajendayaasha shirka aad u fara badan yihiin waana kuwa khuseeya dalalka ku bahway ururka Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya qayb ka tahay. shirka oo berri furmi doona waxaa ka horeeyay shirkii golaha wasiirada oo wasiirkan arrimaha dibadda Axmed Ciise Caawud uu ka qayb galay kaas oo lagu lafaguray ajendayaasha shirka lagu dhameystiri doono.